kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiin badawadayaal meel kastoo daafaha caalamka ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo idin ka soo tabin doono TV-ga caalamiga badda cas 24 xarunta uu ku leeyahay magaalada Burco taawadayaal barnaamijka waxa idin la socodsiin doontaa anigoo Asmaqani Axmed Ismaaciil taawadayaal talo barnaamijku muxuu noqon doonaa barnaamijkani uu ka duwan yahay barnaamijyadii hore maanta studio-ga badda cas 24 waxaan idin ku soo casuunay wiil aad u da'yar oo la magaciisa Suhayb Jaamac Cabdi isla markaana ah wiil ilaahay hiba gaar siiyay bal Suhayb aan idin kala baxo hibada ilaahay siiyay Suhayb ku soo dhaw aan ku dhawaa Suhayb yare intaan u gelin gabayada tirisay bal marka hore taariikh nololeedkaaga kooban taariikh nololeedkaygu magacaygu waa Suhayb Jaamac Cabdi waxaan la noolahay hooyaday iyo aabahay iyo walaaladay waxaan ku noolahay magaalada Burco gaar ahaan xaafadda Caqibo waxaan dhigtaa dugsiga hoose dhexe Ismaan Cabdi Cali Siida galaaskeeta galaaska afraad tawadeel sida wada dheehanaysa amba Suhayb Jaamac Cabdi waa wiil aad u da'yar isla markaana aanay islahayn abwaanimo hibada ku jirta iyo sidoo kale sidoo uu tirinayo gabayada aan idin kala baxo gabayadiisa Suhayb Jaamac gabaygaaga ugu horeeya baxsan baa la dhahaa baxsan baa la dhahaa waxaan u tiriyay iskuulka aan dhigto iskuulkaaga magaciisa Siida Ismaan Cabdi Cali iskuulkaas aad u tirisaa bal waayahay sidaad gabaygan u tirisay wuxuu ku bilaabanayaa ardayay bogaad Soomaaliyeed bariijiye salaam bilan gudoomo baxsan oo bureediyo biladii astaaniya looga dhigay banaaniyo marka xigta bushaariyo dugsigeena baadiye cilmi lagu bogaadso looga dhigay bartiisuga horta barashadeenu waa aqoon buuxda weeye caqligii baraali Ismaan Cabdi Cali ka bayra dugsi baaxadina boqolaal barbaariyo bulsho guul ku gaadho baradii wacnaydi mantalkii tagdheeriyo burca baadilkeediyo bartimaa ku yaalo baradii samaataba loo boqolo weeyaan jaaligu burburiyo aqoontu burburiyo barmado ka reeba hadal buuq ma daayo badooraadii beedkaygan dhuuxo bartaad ku socotiyo himilada bogaagii biltada garaadkii barayaal aqoon loo alla baawar saaro cilmi lagu bineeyo beerjilaac dulqaadiyo naxariis burqanaysa booliyo kalgacaaliyo naftahay basaasto xigmadiyo baxnaaniyo murtibada عسيسو واحد كذا بقتها كابا هاي سارة عبد الله يبوق يمام البحويان مركب بقولنا محمد بابتي سيبو اسكيس بحشي فرشاد حسابتنا عبد وكبر يكو كرب لا يسوق انت بلعت له كي سبب بلالي مرتكو برحيسه دينتنا بلعت له لوغو له برواقه بيرا جنده بقولال وحو كله waxa kubarayo bitaayo fududku kala bilaaya bari samaayo boqor Axmed Keeni علم بالشدة قرنية بلابين بلي باقي كليا كجبوا عبد الرزاق ساينس كي برورتي عذر الله وحبيك صدا لقوا كلا بداشي كجبوا محمد داق واي هاي أنت عن كجني ما إنه بحثنا أو ترسيس كل كاجا عادي جت عاديجو أنت عن تلباد قلين مركي أبونا ذو عرينا يعني كبيضة waxay tiriyaan xilliyo ama habeena ama meel cilaabay ku tiriyaan adigu Suhayb marka tirinayso gabayada si meel nooceeyad ku tirisaa anigu habeena kuma tiriyo meel cilana kuma tiriye goor allaala goortii daan waqti haystaan tiriyaan ayay ku tirisaa aad ayuu u mahadsan yahay Suhayb oo aad wiil aad u da'yar isla markaana aanay islahayn hibada Suhayb ka qabanaysa iyo sidoo kale da'diisu aynu talabaad u gudubno waa asma gabaygan inaan asma la yiraahdo tirisay gabaygan saad u tirisay saysu kugu dhashay gabaygan wuxuu tiri inaan saaxiib aan ahayn ayaa igu yiri inaan asma la dhaho ay mala isku dheeraayeen igu yiri igu samee dadna wuxuu ku bilaabanayaa asma dhool ilaaciyo waxaad ila dhigantahay sidii dheeman iyo luudhiba horti jiilaa dhambacaad kaliileed iyadoo aan raadacay dhayala iga moodina waxa ugu dhacay jacayl oo dhaxaya lafaayal bowlaha dhexdiisu dhismayga samaystaan iga dhaaween kuwa kaba dhaadheer dhamalba loo xidhay markay dhaqaaqan ka ilaa dhamanada dhookinaya suuqyada iyo dhamaanta markooyda digor ka caynta gowlada dhigo ana la dhex taago adna lagu dhex taago midaan kaaga doorsado ismay kameeliyana iga dhaaween hadaan dhinaca dhigan calaf ku dhigay muruma nafta din xaag joogiyo iga qaba dhambalada soo dhibaraqaadna soo dhinayo dhaw jacaylkii aad ayuu mahadsan yahay waxaan oran karaa asmi waa inan ila magaca waxaan u tiriyay saaxiibkii oo inantaasi uu yiri waan jeclaa wali waxaynu bartanka kaga jirnaa gabayada Suhayb yare
oo ah wiil aada u da-yar isla markaana tirinayo gabayo aada u macaan oo xigmadi ku dheehan tahay. gabayga saddexaad aynu gudubno. gabayga saddexaad waxa la yidhaha iga jooji gaadhiga. gabaygan yaad u tirisay siisuu kuugu dhashay? gabaygan isaguna waa sidii kii hore kale oo mid aan isku galaasayno ila fadhiistaa ayaa igu yidhi iyaduna mid yaroo iga dabaadhiyo igu sugay. marka gabaygan waa waxaan leeyahay gabay maagitaanada haa haye soo bilowmaya. anigu kuma jecli kumana jeedi iga jooji gaadhiga burca way jirtaa ku jeediyada laamiga muslinkana ajeersin maadaani daba jabaxsan anigoon jacayl iyo hawshiisa kuma jirin waraaqa aanu jarjarnay jecjecnay ballaarnaa maadaan ku jeebnay. intaa yar ee gaaban buu ahaa gabaygaasi. aynu intaa kaga nimaadno weli daawadayaal waxaynu bartanka kaga jirnaa gabayada Suhayb Yare oo iyagu aynu oran karno gabayo aada u qurxa badan ayuu daadihinayaa. gabayga afraad aynu daawadayaal u soo noqono. gabayga afraad dhool baro baa la yidhahaa. gabayga afraad gabaygan isla sidaaba kuugu curtay mise cid baad u samaysa? isagana cid baan u sameeyey. haye yaad u samaysa gabaygan? isagana mid yaro ayay igu yidhi igu samey. adiga aad bay saaxiibadaadu u badan yihiin marka mar walba saaxiibada baa ku yimaada maadaama ay ogyihiin inaad wax curiso marka waxay ku dhahaan noo samee. marka gabaygan saaxiibkaabaad u samaysaa. haye wuxuu ku bilaabanaya ninba tii ku dheer baa dumarku dhalaal badaa annaada ay dhaawacay dhool baroo ilaaciyo dhabankii bureeqiyo nebi yuusuf tuu dhalay quruxood u dhigantaa anoo kula dhaqaaqo kula dhoofo mooye miyaa layba dhigaya hurdadaba dhammaanteed dhaloolo ma siiyaadaan kuga miyaya ayuu ku bilaabmaya intaas ayuu ku dhammaaday gabaygaasina. daawadayaal weli waxaynu gabagabadii ayaynu ku jirnaa barnaamijka waxaanaynu oran karnaa waa gunti iyo gabagabadii kii ugu dambeeyey ayaynu imanka maraynaa. kaa tahriibtaad ka tiris? haa haye kaa tahriibta ayaan ka tiriyey. dhulkaa la dhigayaabaa tiraa? dhulkaagaa loo hodmaa. dhulkaagaa loo hodmaa. tahriibtaad ka tirisay isaga? bal waayahay waa gabaygii ugu dambeeyey Suhayb Jaamac Yare. isagana aynu eegno Suhayb Jaamac Cabdi Aandhehe bal Suhayb gabaygaa maqashiyo iyo isagana ummadda aad tahriibta uga tirisay. bulsho yahay dhammaanteed socotee dhaqaaqday moodid dhoofka raaxada aan idiin dhawaaqi hadalkayga dhuuxo dhab waxaan u leeyahay bal ha dhaafina dhugo dhulkeenna barwaaqiyo dheeman laga helaayo wada dahab dhalaale cid dhugataan la garanayn dhulkeenna dalxiiskiyo goobaha la dheegtee dadku dhowrto badankii allow wuu ka dhoobe cid dhugataan la garanayn dhulkeenna adduunyada dheeg kastoo la eegaba nabad aan la dhaawicin rabbi inagu dhowre aan ku wada dhaqaaqne cid dhugataan la garanayn. daawadayaal intaasi waxaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena aadka u xiisaha badnaa ee aanu ku wareysanaynay Suhayb Jaamac Cabdi oo ah wiil alla hibe siiyey isla markaana ku nool gobolka Togdheer. daawadayainteenu barnaamij lamida ku kulmi doono annaga iyo badda cas 24 waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.